muqdisho waa caasimada dalka soddonkii sane ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku yimid isbedelo dhanka dhismaha ah halkan oo ah isgoyska taleex ilaa isgoyska kale ee kilomitir 4 waa xilligii barsimeed kalkan ku oli jiray goobo kala duwan oo iskugu jira xarmo dawladeed iyo sidoo kale safaarado dal shisheeye goobaha caanka ah isgoyska taleex ilaa kilomitir 4 ku oli jiray waxaa kamid ah xafiiskii midowga Yurub safaaradii Kenya Uganda iyo Masar sidoo kale halkaani waxaa ku yaala xarumo kale oo ay lahaayeen urur caalamiya kuwaas oo saldhig ku lahaa magaalada muqdisho argadan lambar 4 xilli ay ahaa jirtay meesha ugu dambeeya ee magaalada muqdisho looga baxo laakiin haatan goobahan oo dhan waxay u badan yihiin goobo ganacsi waana dhexbartamaha magaalada Mustafa Sabriye warsame Timcade wuxuu ka mid yahay dhalinyarada taariikhda magaalada wax badan aruuriyay wuxuu nooga waramayaa isbedelka ku yimid magaalada muqdisho gaar ahaan wadadan runtii isgoyskan taleex wuxuu ka mid yahay isgoysyada ugu muhiimsan magaalada caasimadda ee muqdisho soddonkii sano ugu dambeeyay isbedel weyn ayaa ku dhacay markii dawladdu burburtay gadaasheena waxaa nooga muuqda xafiiskii midowga Yurub ee Soomaaliya oo xafiis weyn ahaa jiro aad u bilic qurxoon oo meesha hadda ay degan tahay maqaayadda chicken dhabarkeeda TV-ga tusmo halka markii laga bilaabo ilaa argada lambar 4 oo halka ay ku dhamaato jidka Maka al-Mukarramana waxaa ku yaala 3 safaaradood oo dadka waayeelka ah aan ka soo xigtay oo ah safaaradaha Uganda Kenya iyo Masaarida iyo shaneemadii caanka ahayd shaneema Ecuador iyo labada argo oo ah argadii Talyaaniga uu dhisay iyo argadii uu dhisay Gumaysigii Siyaad Barre uu dhisay oo qaaladii Axmed Gurey oo halgama Soomaaliyeed ah runtii wadada markii dhamaadkeeda taleex goobaha ugu caansan waxa ka soo qaadan karna hotelkii taleex shaneema taleex oo shaneema caan ahayd xilliyadii barisamaadkii la gali jiray iyo carwadii taleex oo soo labay jirtay tiyaatarka ayaa halkan ku yaala goobaha kale muhiimka ah ee wadadan ku yaala waxa hadii dhabarkan laga maro waxa ku yaala xafiiska weyn ee Somali Airlines oo burbursan laakiin meesha ugu muhiimsan waxay tahay argadan lambar 4 argadan weyn oo Talyaaniga oo qiyaastii la dhisay 1926 halkii magaalada muqdisho laga bixi jiray kontumiyadii koorna meesha magaalada outside laga baxayay ahayd argadan micnaheedu waxa la yiraahdaa Trifona Popolaro micnaheedu waxa tahay argada guusha afka af Soomaaliga markii loo turjumo waxa ku lamaansan taalada Imaam Axmed Gurey oo ahaa halgama Soomaaliyeed oo qarnigii 16aad la diray Gumaysigii Abyssinia iyo Portugiiska taariikh muhiim ah ay jidkan leeyahay oo mudan in la soo la baaro dabaqas dheer oo hadda dhismuhu ku socdo waxa waaye shaneema Ecuador shaneemooyinka caanka ah ee ku yaalay degmada Hodan 3 shaneema ugu caansanaa shaneemadan shaneema Ecuador iyo shaneema Hodan oo magacii magaalada degmada Hodan qaadatay iyo shaneema Nasr degmada Hodan intaas shaneemooyinkaas ugu caansan marka runtii meeshan waxa way goob isbedel weyn hadda bangiyada ugu badan dalka ku dhawaad 10 bangi ayaa wadadan kaliya degan horumarkii way dhala rugmataal dhigi karaa marka taariikhdas muhiimka ah inaan la hilmaamin ayaan isku xilqaamay iyo qiyaasteeda dadku inkastoo tilmaamaha ay qaldi karaan laakiin meeshan waxa way xafiiskii wadamada islaamka waxa ku sii degan safaaradii Kenya safaaradii Uganda iyo dhismaha kale oo xaggaasna waxa ku yaala safaaradii Masaarida marka waa 3 safaaradood iyo xafiis wadamada islaamka ay ku lahaayeen Soomaaliya waxay ahayd dadkii fikradda lahaa ururkii wadamada islaamka oo ICC-da fikradeeda waxa lahaa Allah u naxariistay madaxweyne Aadan Cadde 1969 magaalada Rabaad ee dalka Morocco ayaa lagu aasaasay xafiiskoodana halkan ayuu ku yaala marka taariikh muhiim ah oo duugan oo laakiin dhala rogmatay ayaa halkan ku yaala halkan waa argada magaalada muqdisho xilli ay ahaa jirtay meesha ugu dambeeyay ee magaalada muqdisho looga baxo laakiin haatan waa satarka magaalada waa dhexbartamaha magaalada taasina waxay muujinaysaa isbedelka ku dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka sanadii 1926 ayaa argadan la dhisay waxaana xilligaas loo yaqaanay argadii guusha wixii ku horeeyay 1950kii waxay halkan ahayd goob baadiye ah laakiin haatan waa dhexbartamaha magaalada waxaana ku hareeraysan goobo ganacsi oo magaalada ku yaala Hanad Maxamed Karaame Goobjoog muqdisho bishaaro macamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu
dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeegga eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal settingka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ay kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee hambalyo waad ku guulaysatay isdiiwaangelinta adeegga eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeegga eSIM. Mahadsanid.